السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله ودي الكسور دوada kanaalkeena waa kuma weligaa ma jeclaysatay inaad yeelato awooda dadka dheer tahay sida inaad ogaan karto waxyaalaha dadku ku fikirayaan ama inaad yeelato indhaada habeenkii xilliga mugdiga wax ku arki karto ma soogtahay in badan oo kamid ah awoodaha khiyaaliga ee aktarada filmaantu leeyihiin ay jiraan dad si dhaba u leh. haddaba muuqaalkeenan maanta waxaan idinkula wadaagi doonaa caruur la dhashay awoodo la yaab leh oo ay dadka dheer yihiin. intaynaan u gelin barnaamijkeenan waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto si uu saaxiibo fara badan u gaadho. soo dhowow daawade. wiil yaroo habeenkii wax arki kara Nong Yu Hee waa wiil yaroo Chinese kaas oo leh indho buluuga una kuwa bisadaha. waalidiintiisa ayaa ka shakiyay indhaha wiilkooda kadib markii uu u sheegay in qorraxda galabtii ay dhibayso, sidoo kale markii uu iftiin aad u badan jirana ay aragtida indhihiisu daciifayaan. intaa kadib waalidiintiisa waxay guriga ugu keeneen dhakhtar indhood hubiyaha caafimaadka indhihiisa. tijaabooyin badan oo uu ku sameeyay kadib wuxuu ogaaday dhakhtarkii in marka qorraxda ku dhacda indhaha wiilkan yar ay indhihiisu isku bedelayaan cagaaran bakhtar, taasoo ah astaan ay leeyihiin bisaduhu. balse arrinta ka siyaabka badan ayaa noqotay markii la ogaaday in wiilkan yar uu si fiican wax u arki karo xilliga habeenkii sida bisadaha iyo xayawaanada kale. markii ay soo shaabaxday sheekadii wiilkan yar waxaa guriga ku soo booqday wariyayaal ka kala yimid daafaha dunida si ay u ogaadaan xaqiiqda arrinta wiilkan yar. waxayna ka qaadeen tijaabooyin. markii ugu horreysay waxay meel mugdi ah ku tuseen turub, waxayna weydiiyeen inuu sheego nooca uu yahay mid kastana si saxa ayuu uu sheegay. tijaabadii labaad waxay sidoo kale meel mugdi ugu dhiibeen imtixaan su'aala, laakiin la yaab kamuusan jawaabin oo kaliya su'aalihii oo kaliya, balse wuxuu jawaabihi ku qoray meelihii loogu talagalay. wiilkan yar ayaa China dhexdeeda looga yaqaanaa wiilkii bisada ahaa. Hasna Muslimani 12 jirkan Hasna Muslimani oo u dhalatay dalka Lubnaan waxay waqti dhow ogaatay inay leedahay mucjiso ay dadka dheer tahay. waxay markii ugu horeysay isheeda ka soo dhacay walax dhala u eeg. intaa kadib gabadhan hooyadeed waxay u qaaday dhakhtarka kaasoo 3 quraarado ka soo saaray isheeda, laakiin dhakhtarku wuxuu u waayay wax fasiraada arrinta gabadhan. maalinta laga soo bilaabo Hasna waxay isheeda ka soo baxay 7 ilaa 8 xabo oo ah dhalooyin maalin kasta, laakiin nasiib wanaag markay dhalooyinka ka soo baxayaan isheeda ma dareemayso wax xanuun sababtoo ah waxaa dhalooyinka ku dahaaran walax jilicsan oo ka difaacaysa dhalada inay dhaawac u geysato isheeda. gabadhii dabka Emma Tablet oo ka soo jeeda dalka Philippines waxay leedahay awood khaas ah oo cabsi leh taasoo lagu magacaabo pyrokinesis amba awoodda ay ku bilaabi karto dab iyadoo adeegsanaysa maskaxdeeda. waa arrin aan macquul u ekayn, laakiin awoodda pyrokinesis waa arrin xaqiiqo ah. markii hore meel walba ay Emma tagto waxaa ka bilaabmanaya dab, laakiin dadku waxay moodi jireen inay bilikay amba kabriid isticmaasho gabadhan yari. balse markii dambe ayaa la ogaaday in dabka ay maskaxdeeda ka bilowdo. dad badan ayaana aamin waayay arrinta gabadhan yar, waxayna dowladda Philippines u dirtay askar iyo saynisyahanno si ay u soo hubiyaan arrinta Emma Tablet. markii ay guriga tageen ayay u sheegtay inay gubi doonto meel guriga ka mida iyadoo odhanaysa ereyga sunoog kaasoo ah erey Filipina micnihiisuna yahay dab. intaa kadib waxaa dab ka bilowday meelo badan, balse arrinta ka siyaabka badan ayaa noqotay inay gubi karto meeshay ugu tala gasho. Yang Chin Long wiil yar oo aad u xoog weyn 7 jirkan u dhashay wadanka China waa mid aad u xoog weyn. wuxuu awoodaa inuu jiido gaadhi 2 tan culiskiisu yahay dadna ka buuxaan. sidoo kale wuxuu qaadi karaa aabihii. awoodda wiilkan yar ayaa la arkay isagoo 5 jir ah kadib markii uu bilaabay inuu ku ciyaaro foostooyin shidaal ka buuxo, wuxuuna si fudud uga qaadi jiray booskooda isagoo geynay jiray meelo kale. dhinaca kale waxaa jira shakhsiyaad xoog badan kuwaasoo samayn kara waxyaalo kale oo badan, balse arrinta dad badan ka yaabsatay ayaa qofka waxyaalahaas sameynaya inuu yahay cunug 7 jir ah. Nandana Unikrishna gabadh yar oo maskaxda dadka akhrisata khubaro caafimaad oo ka kala socday daafaha caalamka ayay ka yaabsatay gabadhan yar kadib markii ay ogaadeen awoodda mucjisada ah. waxay ahayd 7 sano jir markii ay soo ifbaxday awooddeeda cajiibka ah, waxaana xilligaas loo ogaaday in gabadhan yari ay ogaan karto wax kasta oo ay hooyadeed ku fikirayso iyada oo aan taaban amba aan la hadlin. waxayna sheekada Nandana soo jiidatay dad fara badan. intaa kadib waxay waalidinta gabadha yar ku hansadeen inay ogaadaan in gabadhooda ay sida hooyadeed oo kale ay dadka kalena u ogaan karto waxyaalaha ay ku fikirayaan.
balse waxaa la ogaaday in gabadhan yar xidhiidhka la yaab keliya ay la leedahay hooyadeed. laakiin si loo hubiyo awoodda gabadhan yar waxaa la marsiiyey tijaabooyin aad u adag, waxaana hooyada loo sheegay inay maskaxda ku qabsato waxyaabo kala duwan sida taleefon number, magacyada meele ayna weligeed maqal gabadha yari, iyo jumlada malaawaala iyadoon wax hadal ah amba ishaaro ah samaynayn. laakiin Nandana mid kasta si saxan ayay u sheegtay. soo wax lala yaabo maaha daawade. saaxiibayaal, halkaas ayuu ku egiyay muuqaalkeenni maanta. waad ku mahadsantahay sida quruxda badan ee aad nala soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkeennan. maca asalaama, fii amaanillaah.